waa naadir in qof qashin ka qaado meelaan gurigiisa ahayn balse Yoonis ayaa qabta shaqadan oo aan cidna u xilsaarin dhaqaalena uusan ka soo gelin taasi uu ka bilaabay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir isagoo wata jawaano iyo gacmo gashi ayuu aroortii u jarmaadaa sidii uu u qaadi lahaa qayb yar oo kamida qashinkii xalay la soo daadiyay degmada Madiina ka bilaabay xaafadayda ka bilaabay xaafadayda meel agteeda baan ka sameeyay barnaamij nadaafada oo aad u wasaqeysneed markii koobaad aad bay u wasaqeysneed markii aan sameeyay oo nadaafadii aan ka sameeyay waa meeshii waxay noqotay meel qurxan oo bulshadii soo jiidatay oo dadkii deegaanka iyo xaafadda degnay ay aad ugu buuriyeen in aan barnaamijkan sii wado waa keligii hawsha nadaafaduna waa qabyo laakiin wacyigelintiisu waxay gaari kartaa dad badan oo caasimadda bilicdeeda wax ka qabta dareenka wadaniyadeed ee ruuxda ku duugan oo isku haya qofka iyo ciidda hooyo ayaa ku riixaya inuu xaabiyo qashin la soo tuumiyay Toobiyaha iyo faras magaalaha caasimadda Muqdisho waxaan sameynaynaa inaan bulshada aan wacyi gelino aan u sheegno muhiimadda uu deegaanka u leeyahay aan u sheegno in ayaga iyo deegaanka isbedel ku sameey karaan inay caasimadda bilicdeeda ay soo celi karaan tusaale ahaan hadda meesha aan nadiifinay si u teelay iyo hadda si taa waa arkaysa marka qof walba hadduu isxilqaamo oo nadiifiyo gurigiisa ama goobtiisa ganacsi horteeda waa caasimadda muuqaalkeeda uu isbedelaya saafale suuban iyo xidig la mahadiyay ayuu ka yahay Jaamacadda Umadda oo cilmiga deegaanka uu ka barto waa arday saaxiibkay muddan inta isku galaas ahayn shakhsiyan waxa weeye arday aad wanaagsan weeye mar waliba jecel yaani inuu bulshadu adeego qabto howlaha yaani isxilqaanka mar oo yaani inuu ardayna matali kara maanta cilmiga aan barano iyo dadka message-ka aan gaarsiin karin qof gaarsiin karo way maanta uu matali karo waay aad ugu faraxsanahay hawshu qabtay duruusta culumta deegaanka oo ay ku suntan tahay nadaafadda iyo noloshu inay wada jiraan ayaa ku abuurtay inuu ka hortago nadaafad darrada deegaanka in laga shaqeeyo horta waa hool aan aad u jecelahay oo nafsiid ahaan aan jecelahay marka iga maxadidaysa marka waxbarashadayda anigoo wado inaan barnaamijkan nadaafadda iyo wacyigelintii bulshada inaan sameeyo taas beddelkeeda waxaan sameeyaa maalmaha aan firaaqada helo oo jaaniskaas oo maalin duruusad iyo fasax ay tahay marka aan jaanis u helo waa wax caadi ah weeyaan inaan sameeyo qashin guryaha laga soo daabulay ayaa tuunsan qaar kamida goobaha danta guud ee magaalada Muqdisho jidadka iyo faras magaalayaashu haw badnaadeene Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho.